bilowgii maalinta madow. Si loo fahmo sida noloshu ugu dhammaato si naxariis darro ah, waa inaan milicsanaa sidii ay maalintu ku bilaabatay. Khamiis 24 Noofambar sanadkii 2022. Waxay ahayd bilowgii koobka adduunka. Jidadka magaalada Wigan-na way xasiloonaayeen. Dadka degan dhabada Kilburn Drive, maalintu waxay ugu bilaabatay laxanka caadiga ah ee nolosha xaafadaha. Qorraxdu waxay ka soo baxday daruuro gadaashood, laydadka barandada ayaa damay, kilidadii shaaha ayaa karkaray, daahyadiina waa laga rogay daaqadaha. Waa waddo degan oo derisku isku yaqaanaan aragtida haddii aysan isku aqoon magacyada. Laakiin khamiistan gaarka ah, laxanku wuxuu ahaa mid qaldan. Sababtoo ah wax yar kadib 6dii subaxnimo, baabuur aan goobta laga aqoon ayaa soo galay xaafadda. Wuxuu ahaa baabuur nooca Mitsubishi Shogun ah. Wuxuu ahaa madow culus oo si tartiib ah u dhex marayay cawska la qurxiyey ka hor inta uusan istaagin meel u dhow dhammaadka jidka. Darawalku ma gelin guri, mana eegin maab. Keliya mishiinkii ayuu damiyey, dibna ayuu u fadhiistay isagoo sugaya dhibanaha, Liam Smith. Gudaha guriga dhowr albaab u jira, 83 jirka lagu magacaabo Liam Smith ayaa soo toosay. Liam wuxuu ahaa wiil maxalli ah, koronto yaqaan ah, ahna aabbaha 2 wiil. Wuxuu ahaa kabtanka kooxda kubadda cagta ee Sheffington Sharks, ninkuna wuxuu ahaa nafta iyo lafdhabarta saaxiibadiis. Liam ma haysan sabab uu daaqadda uga eego oo uu uga walwalo baabuur goobta yaala. Ma haysan deymo lagu lahaa, ma haysan ol, kumana jirin dunida dambiilayaasha. Wuxuu ahaa keliya nin u diyaar garoobaya maalintiisa shaqo. Wuxuu macsalaameeyey qoyskiisii, wuxuu qaatay furayaashiisii, wuxuuna u soo baxay gaarigiisii shaqada. Wuxuu garab maray baabuurkii Mitsubishi Shogun isagoo ka baxaya jidka. Ma uusan ogayn, laakiin ninkii baabuurkaas dhex fadhiyey ayaa isha ku hayay bixitaankiisa. Waxaana ka sii naxdin badnaa inuu diyaar u ahaa inuu sugayo soo noqoshadiisa saacado badan. Wakhtigu waa shay la yaab leh marka ay socoto baaritaanka boolisku. Badanaa wax walba waxay u dhacaan si degdeg ah. Laakiin kiiskan, naxdintu waxay ku jirtaa aamusnaanta. 10 saacadood ayuu darawalku baabuurka dhex fadhiyey. Dilka iyo sharaf dilka maydka. 10 saacadood oo uu xanuun iyo argoosi la karkarayay. Kursiga garabkiisa yaalla waxaa saarnaa bastoolad nooca iskood u rida ah iyo weel ay ku jirto aashitada salfuuriig. Fiidnimadii hore jawigu wuu isbedelay. Roob culus oo aan kala go lahayn ayaa bilaabay inuu ku doo magaalada Wigan. Saacadda markay ahayd 6:40 ee fiidnimo, laydadka gaariga Liam ayaa soo iftiimiyey waddada qoyan. Wuxuu dib ugu soo laabtay Kilburn Drive. Liam wuxuu baabuurka dhigtay dhabada gurigiisa. Wuxuu soo qaatay alaabtiisii isagoo laga yaabo inuu ka fikirayay cashadii ama kubadda cagta. Jidka dhankiisa kale, albaabkii Mitsubishi ayaa furmay. Ma uusan oran hal eray. Ma jirin digniin, balse keliya dhawaaq hal mar ah oo ka dhex dhacay guryaha. Xabaddu waxay ku dhacday Liam wejiga. Isla markiiba wuu dhacay. Gacan ku dhiiglayaasha badankood intaas ayaa ku filan, laakiin kani ma uusan dhammaysan. Wuxuu istaagay maydka Liam korkiisa wuxuuna ku shubay aashitada salfuuriig. Waxay ahayd fal qarniyadii dhexe u ekaa oo ka dhex dhacay xaafad casri ah. Baaritaanka iyo murugada qoyska. Markii booliiska Greater Manchester ay yimaadeen, goobtu waxay ahayd mid qasan. Roobka ayaa dhaqayay cadeymihii qaar. Baaraha sare ee lagu magacaabo Gina Brennan oo hogaaminaysay baaritaanka waxay wajahaysay xujo adag, bastoolad iyo aashito. Taasi waa calaamada dembiyada abaabulan ama maleeshiyaadka khatarta ah. 4 toddobaad ka hor ciida Masiixiga, Liam oo xilligaas keligiis guriga joogay ayaa la dilay. Liam ma ahayn oo keliya aabe u gooy carruurtiisa, balse wuxuu ahaa wiil la jecel yahay, walaal iyo saaxiib qaali ah. Dilka Liam ee ka dhacay gurigiisa wuxuu ku reebay naxdin iyo quus qof kasta oo aqoon u lahaa. Labadiisa wiil oo kala jiray 5 iyo 10 iyo 11 sano, waxay hadda noloshooda intiisa kale ku qaadan doonaan aabelaan. Qoyska intiisa kalena waxay weligood la kici doonaan riyo qarowga falkan dilka ah ee macno darrada ah. Baarayaashu ma aysan aqoon cidda falka geysatay, ma haysan markhaati iyo wax hub ah oo goobta looga tegay, taas oo ka dhigtay kiiska mid bilowgiisaba madow.
gebagabada hadalkayga, dilka ninku ma aha oo keliya marka nafta la daafiyo, balse waa marka lagu dayo in raadkiisa iyo sharafkiisaba lagu tirtiro aashito iyo nacayb. baaritaanka raadraaci Sheffield iyo sirta Tinder. baaritaanka nolol qarsoon, raadin iyo reergal. boolisku waxay dhex galeen xisaabaadkiisa bangiga, waxay baareen diiwaanka taleefankiisa, waxayna la hadleen saaxiibadiis. waxay raadinayeen nolol qarsoon oo sharxi karta heerka naxariis darrada ah ee loo dilay. waxba ma ayan helin. Liam Smith wuxuu ahaa qofka uu u muuqday aabbe shaqaysta iyo nin dadka dhexdiisa laga jecel yahay. baarayaashu waxay markaas dareemeen in falkani uusan ahayn mid ay geysteen burcad xirfadlayaal ah, balse uu ahaa mid shakhsi ah. si loo helo gacan ku-dhiiglaha, uma ayan baahnayn inay fiiriyaan kooxaha dambiilayaasha ah, balse waxay u baahdeen inay dib u eegaan xiriiradii hore ee Liam. inkasta oo baabuurka la saaray taargooyin been abuur ah, boolisku waxay ku guulaysteen inay raacaan raadka baabuurkii Mitsubishi Shogun. waxay u raaceen si taxadar leh, kamaradba kamarad, maylba mayl, ilaa ay ka gaareen magaalada Sheffield, gaar ahaan dhabada guriga nin la yiraahdo Michael Hillier. kulankii geerida Rachel iyo Michael Hillier wuxuu ahaa qof laga yaqaan agagaarkiisa, isagoo ku lug lahaa ka ganacsiga maandooriyaha, wuxuuna ahaa nin kulul oo dabeecad adag. balse wax xiriir ah kalama dhexaynin Liam Smith. marna ma ayan kulmin, mana lahayn saaxiibo ka dhexeeya. maxay tahay sababta uu nin maandooriyaha ka ganacsada oo jooga Sheffield ugu soconayo saacaddan magaalada Wigan si uu u dilo koronto yaqaan? jawaabtu waxay ku jirtay gabadha uu shukaansanayay Michael. waxay ahayd Rachel Folto, oo 37 jir ah, kana shaqaysa suuq-geynta dijitaalka ah ee magaalada York. baarayaashu waxay heleen xiriir yar oo u dhexeeyay iyada iyo Liam. 3 sano ka hor, sannadkii 2019, Liam iyo Rachel waxay iska barteen barta Tinder. waxay ku kulmeen magaalada York, habeenna way wada qaateen. Liam waxay u ahayd kulan gaaban oo iska dhacay, wax dhab ahna kama dhex dhalan, si asluub lehna wuu isaga ag fogaaday. marin habaabinta iyo shirqoolka. Liam wuxuu dib ugu laabtay noloshiisii Wigan, lagana yaabee inuusan marna dib uga fikirin habeenkaas. laakiin Rachel Folto habeenkaas uma dhammaan ee wuxuu ku dhex karkarayay maskaxdeeda. muddo 3 sano ah, waxay dib u qortay taariikhda habeenkaas. waxay dadka u sheegi jirtay in kulankaasi uusan ahayn mid raalli la isaga ahaa. tani waxay ahayd eedayn weyn oo aysan marna u sheegin booliska ama saaxiibadeed xilligaas. markii ay la kulantay Michael Hillier, waxay heshay weelkii ay ku shubi lahayd caradeeda. Michael wuxuu ahaa nin doonayay inuu noqdo geesi difaaca haweenka. Rachel waxay u sheegtay sheeko ku saabsan nin xun oo dhib u geystay. markaas ayuu Michael go'aansaday inuu noqdo geesi aarguta. labadoodii waxay iska dhaafeen inay noqdaan lamaane caadi ah, waxayna isu beddeleen shirqool wadayaal dil qorshaynaya. markii boolisku xireen Michael, raadku wuxuu si toos ah u horseeday Rachel. been abuurka iyo safarkii Jamaica. qolka su'aalaha, Rachel waxay soo bandhigtay jilaannimo heer sare ah. waxay isu muujisay gabar cabsanaysa oo saaxiib la ah nin waalan oo maandooriya isticmaala. waxay baarayaasha u sheegtay inay ka baqaysay Michael, ayna garanayn inuu dili doono Liam. waxay sheegatay inay tahay dhibane lagu qasbay xiriirkaas. waxay ahayd sheeko dadka qancin karta, laakiin xilligan casriga ah, ma qarin kartid raadkaaga dijitaalka ah. markii khubarada aqoonta dijitaalka ahi ay fureen taleefankeeda, difaacii gabadha dhibanaha ahayd wuu burburay. maalmihii dilka ka horreeyey ma ayan raadinayn taleefannada gurmadka ee dumarka la dhibo. waxay raadinaysay jawiga magaalada Wigan, iyadoo hubinaysay in roobku masaxi doono raadadka baaritaanka booliska. waxay raadinaysay sida dhiigga looga dhaqo dharka iyo inta ay ku qaadato aashitadu inay miliso birta. waxaana ka sii daran in maalmo kadib dilka ay u duuleen dalka Jamaica iyagoo fasax 2 toddobaad ah u aaday. gunaanadka, sharciga iyo ciqaabta. xilli qoyska Liam ay dooranayeen naxashka, isuna diyaarinayeen aaska, Rachel iyo Michael waxay soo dhigayeen sawirro ay ku cabayaan cabitaanno, iyagoo qoraxdii ku raaxaysanaya. uma ayan muuqan kuwa cabsanaya, waxay u muuqdeen kuwa guulaystay. waxay u maleeyeen inay galeen dembi aan la ogaan karin markay tirtireen diiwaanka raadinta ee taleefankooda.
markii maxkamaddu bilaabatay is-aaminadii ka dhaxaysay lamaanaha way dhammaatay. Michael Hillier wuxuu qirtay dilka, balse wuxuu sheegay in Rachel ay tahay maskaxdii ka dambaysay ee ka dhigatay qalab. Rachel waxay ku dhegan yahay sheekadeedii ahayd inay ka baqaysay ninka. Xajmiga maxkamadda magaalada Manchester ma aysan rumaysan midkoodna. Waxay u arkeen inay ahaayeen lamaane iskabayay, wada qorsheeyey, wada fuliyey, wadana qariyey falka. Michael Hillier waxaa lagu xukumay xabsi daa'im ah oo aan ka yarayn 33 sano, halka Rachel Folto lagu xukumay xabsi daa'im ah oo aan ka yarayn 30 sano. Gebagabada hadalkayga. Inaad dambi gasho waa hal dhibaato, laakiin inaad u dabaaldegto dhiigga qof aan waxba galabsan waa heerka ugu hooseeya ee naxariis darro bini'aadan gaaro.